duhur wanaagsan daawadayaal waa wararkii xulliga xaqiiqo ah ee aad kala socoteen Alool Media TV. qaybta waxaanu idinku haynaa haddii alla idmo Iran oo hubkii ugu badnaa ku sii qulqulaysa Ruushka iyo xogta aanu idinka soo diyaarinay. taariikhdu waa 8 November 2022 ducaa qabayaal mar kale soo dhawaad. hay'adaha sirdoonka militariga Ukraine General Vadim Shipetsky ayaa wargeyska Kiev Post u xaqiijiyay in Ruushka uu qorsheynayo inuu Iran ka soo iibsado gantaalada balistiga ah sida uu sheegay. waxaa jira khataro la soo jarsi doona ciidamada Ukraine haddii arrintani dhacdo, taas oo u saamaxaysa Ruushka inuu laba jibaaro weerarada gantaalada ee ka dhanka ah Ukraine. sida laga soo xigtay sirdoonka militariga Ukraine, Ruushka ayaa ku howlan sidii uu gacanta ugu dhigi lahaa wax kasta oo hub ah oo uu ka heli karo saaxiibadiisa Iran. sida oo kale Ruushku wuxuu qorsheynayaa inuu Iran ka soo iibsado gantaalada balistiga ah ee Fatah 110 iyo kuwa caanka ah ee Solfakhr. daawada xogtan ah in Ruushku hub ka helaya Iran ayaan ahayn mid hadda cusub oo aan horaba idinla wadaagnay, taas oo Tehran laftigoodu ay qirteen mashruucan, balse waxaa cusub in la sii xoojinayo. hubka Ruushku ka helaya Tehran oo Ukraine ay rajeynaysa in uu hoos u dhac ku yimaado kadib markii warbaahinta lala wadaagay, ayaa xogahan ku saabsan ay tilmaamayaan in la sii xoojinayo oo la sii laba jibaarayo. Yuri Ignat oo ah afhayeenka ciidamada cirka ee Ukraine ayaa aaminsan in Ruushka uu isku diyaarinayo in uu saldhigyo gantaalada balistiga ee Iran ka hirgeliyo meel u dhow xuduudda waqooyi ee Ukraine. waxa uu sheegay in toogashada madaafiicdani ay aragti ahaan macquul tahay, laakiin ay ficil ahaan aad u adkaan doonto. wuxuu yidhi, waxaan qaadi doonaa tallaabo kasta oo difaac ah suurtagal ah oo ka dhan ah gantaalada. waxay u badan tahay in la dejin doono buu yidhi waqooyiga Ukraine, waxaana loo bilaabi doonaa si ay ugu hanjabaan dhammaan Ukraine. Ignat ayaa ku sharaxay warbixintan oo daba socota xogo sirdoonka Ukraine ay arrintan ka soo saareen 1 November, markaas oo ahayd markii ugu horeysay ee saldhigyadan waqooyiga lasoo bandhigay. haddiiba ay dhacdo in Ruushku uu ka hirgeliyo saldhigyo hor leh gudaha Ukraine, taasi waxay mar kale sii xoojinaysaa ama xaqiijinaysaa in awoodda ciidameed ee gudaha Ukraine ay mar walba u sii jeedo kuna sii sidqayso dhinaca Ruushka. ciidamada Ukraine ayaa hore u sheegay gantaalada balistiga ah ma hayno difaac wax ku ool ah oo iyaga inaga difaaca. waxaan leenahay bay yidhahdeen habka difaaca hawada, laakiin ma aha difaaca gantaalada. sirdoonka Ukraine ayaa xaqiijiyey in Iran ay qorsheynayso inay u dirto shixnad ka badan 2,000 oo diyaaradood oo kuwa dagaalka ah horaanta bisha November ee sanadkan, iyo weliba gantaalada nooca Shahid 136, Mocher 6 iyo Arash 2. shixnadan ayaa ay ka muuqdaan hub cusub sida gantaalada Arish 2 oo kale, taas oo haddana ka turjumaysa xiriirka Iran oo sii xoogaysanaya marka la eegayo hubka ay geenayaan gudaha Ruushka. sida warbaahintan lagu sheegay, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ayaa la soo marsiin doonaa badda Caspianka ilaa dekada Arsarkan. marka Ruushka shixnadahan la keeno, waxaa lagu sameyn doonaa dhaqan bedel sida in dib loo rinjiyeeyo oo la siiyo calaamadaha Ruushka, gaar ahaan Grania 2 oo ah shirkadda inta badan ku astaamaysan hubka Ruushku u isticmaalo dagaalka Ukraine. weerarada isdaba jooga ah ee Ruushka uu ku hayo xarumaha korontada ee Ukraine ayaa sababay in koronto la'aani ka dhacdo qaybo badan oo ka mid ah dalkaas oo ay ku jirto caasimadda Kiev. diyaaradaha droneska ee Iran ayaa kaalin weyn amaba qayb libaax leh ka qaatay weeraradan lagu waxyeeleynayo tamarta Ukraine, taas oo Ruushku uu ku sheegay in uu kaga jawaabayo weerar argagixiso ah oo isaga lagula kacay. maanta saacadihii hore, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba oo wadahadal dhanka telefoonka ah la yeeshay dhigiisa Iran ayaa dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo hubka Iran. maanta waxaan helay wicitaan ka yimid wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir, kaas oo aan ka dalbaday buu yidhi Iran inay si degdeg ah u joojiso qulqulka hubka ee Ruushka, kaasoo loo isticmaalo ama lagu laayo dadka rayidka ah laguna burburiyo buu yidhi kaabayaasha muhiimka ee Ukraine, sida uu ku qoray barta uu ku leeyahay Twitterka.
teheraan waxay qaratay inay Moscow ku wareejisay qayb ka mid ah diyaaradaheeda aan duuliyaal lahayn ka hor intii aan dagaalku bilaabmin. Kiev may rumaysan arrintan. Warbaahinta Mareykanka ayaa wax badan ka qortay diyaaradaha aan duuliyaal lahayn ee Teheraan geysay Ruushka bishii August kadib mar kalena bishii October. Midowga Yurub ayaa cunaqabateyn ku soo rogay shirkadda soo saarta diyaaradahan. Iiraan iyo Ruushka ayaa sidoo kale beeniyey wax huba in la keenay intii dagaalku socday gudaha Ruushka oo ka yimi Iiraan, balse waxa xaqiiqaha ah in saaxiibada Moscow ay ku sii badanayaan saameynta dagaalkan culus.